waxaa maanta si rasmi ah xilalkii loogu kala wareejiyay isuduwihii wasaaradda caafimaadka ee degmada Sheekh iyo isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Somaliland u soo magacawday degmada Sheekh ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Somaliland u soo magacawday dhakhtarka degmada Sheekh iyo agaasimihii hore. Munaasabaddan xilkay kula kala wareegayeen mas'uuliyiintan ayaa waxay ka qabsoontay gudaha cisbitaalka degmada Sheekh waxaana ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, xildhibaano iyo maayirka degmada Sheekh iyo badiba bahda caafimaadka ee degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. Waxaana ugu horreyntii halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey agaasimihii hore ee cisbitaalka degmada Sheekh iyo isuduwihii wasaaradda caafimaadka ee degmada Sheekh ee gobolka Saaxil oo ku dheeraaday waxqabadka ay ka qabteen intii ay joogeen degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. muddadii aan halkaas oo ay dadkii kala qaabay sanadkii isii maxay soo leeyihiin afraad waxqabadkii inta aan qabanay waxa ugu weynaanay sidii ayadna waxa ka mid ah in aan ka joojino isbitaalka oo kale biyo ku soconayay oo khatar ku yahay isbitaalka taas oo ku dadaalay aan sameynay qaybtan inta ku badnayd in aan ka joojino biyihii talaabada wixii kale yahay in aan qaybta ka bixiyay kalena ayana aan sameyno qorshe aan leeyahay laakiin si insha Allah aan filayo in bixiga in waxa si wado waxaan shaqeynaya caafimaadka degmada muddo 29 sanadood alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa soo galay anigoo 20 jir oo shaarkaygu cad yahay anigoo 50 jir oo shaarkaygu cad yahay oo wareer jiray waxaan ka soo shaqeeyay caafimaadka degmada iyadoo fureen xarun caafimaad hadday tahay dhakhtar hadday tahay xanaano hadday tahay goob TV oo aan ku eegi jiray dadka bartayda caafimaadka aan degmada ku leeyahay gula shaqeyn jiray oo guna adeegi jiray bulshada waxaan ahaa qof ku dadaala sinaanta cadaaladda u kala xaqaadka bulshada iyo dhexdhexaadintooda. geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay dhakhtarka degmada Sheekh iyo isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda caafimaadka ee degmada Sheekh oo bogaadiyey maamulkii ka horeeyay isla markaana ay maanta xilka kala wareegayaan. adeerkay Ibraahim leeyahay Allah abu sharfo iyo agaasimihi hore cisbitaalka degmada Sheekh Dr. Umar Abdi Maxamed runtii sharaf iyo karaamo iyo cisi inta baan u hayo xilkuna wareegto shalay toona ardaygiisa baan ahaa wala shaqeynayay waan garab istaagay wala dhimanay maanta waxaan rajaynayaa agaasimihi insha Allah isla laga shaqeeyo garab istaago wixii waa aragnimada talaayad saaranaysiyo waxaan xilka kala wareegay sidoo hore شاء رجينا أنغو إنه هرمنا عافمات كدقمنا نكون شقينا عدالة يسنان أنغو كم الحين شغالي هرب شغين ترى إسلام استال كم تديرنا كشغين وغيرنا نبغى يكفرنا وهايسنا geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadalkaysa ka daba qaatay mas'uuliyiin tiro badan oo dhammaantoodba bogaadiyey isla markaana soo dhaweeyay maamulka cusub ee wasaaradda caafimaadka u soo wakiilatay degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. xafladan aynu joogno oo ah xaflad lagu sagootiyo isuduwii hore iyo agaasimahaba si sharaf iyo cisi leh ayaan ku sagootiyeynaa hadaan nahay guddiga caafimaadka anoo ku hadlaya afka caafimaadka isuduwaha iyo agaasimaha cusubna waxaan ku soo dhaweynaynaa waji furan ilaahayna xilka haydu ku asto inta waxaan u dhaafayaa runtii muddadii aan la shaqeynaynay isuduwii hore iyo agaasimaha dhakhtarna wax qabad fara badan ayaa ka hirgalay oo waxa ka mid ah haddii aan ka xasuusan karo waxa uu ka qaabtay isuduwuhu dhismaha isbitaalkan ومولها halkan waxaan maanta ugu nimi waa xil wareejinta isuduwii hore iyo isuduwaha dambe iyo agaasimihii hore iyo agaasimaha dambe horta runtii waxaan qirayaa agaasimihii hore halka xilka wareejiyay inta taariikh nololeedkiisa uu sheegayba waa dhab nin intaaba u soo halgamay buu ahaa nin in badan soo shaqeynay professional buu ahaa gabagabadii waxaa munaasabadaas soo afmeeray isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil iyo duqa degmada Sheekh
oo labadooduba bogaadiyey maamulkii hore ee gacanta ku hayay wasaaradda caafimaadka iyo dhakhtarka degmada Sheekh isla markaana soo dhaweeyay maamulka cusub ee loo soo magacaabay cisbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee degmada Sheekh. maamulkii horena waa u ducaynaa waan sugooteynaa insha allahu tacaala waxsan baan u rajeynaa khayr baan u rajeynaa bashbash iyo barwaaqo ayaan u rajeynaa insha allahu tacaala isbitaalka cusubna waan la dardaarmaynaa isaga hambaliyo sii mayna laakiin dardaar baan siinaa insha allahu tacaala waan la dardaarmaynaa si adag baan la dardaarmaynaa si adag baan la shaqeynaa insha allahu tacaala runtii xamse iyo ismaaciil waxay tusaale u yihiin oo calaamatu su-aal ay dul saaran tahay jilka cusub ee soo koraya oo anigu waa ku jiray raggii calaamatu su-aalka ay saarneyd weliba ay saaran tahay waxaa loo baahan yahay in meel laga soo wada jeesto horumarinta caafimaadka ee degmadoo dhan gaar ahaan cisbitaalka degmadoo taariikh ku leh gobolka cisbitaalku ahaan jiray meel walba looga yimaado maanta jaaniskii waan haysanaa magaalo cid walba iman karaysa weeyaan takhasus kastoo la keeno way shaqaynaysaa laakiin wada shaqayntii iyo sidii looga dhigi lahaa cisbitaal taabagala oo shaqeeya wuxuu u baahan yahay in ay daacadnimo timaado in ay ka go'naato bulshada degmada dadka oo dhan in la wada horumariyo. waa Maxamed Ali Ahmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ee Bulsha TV degmada Sheekh.